wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Ruuxi Home Decor. Waa walaashiin Raxma Ruuxi. Maanta saa u jeedin waxaan idin wadaa nafaqo timaha oo jajabka ka ilaalinayso iyo waxtarna leh oo timahana dheereynayso maasha Allah. oo hadda waxaa rabay inaa marsadaa rabay markii waxaan is dhahay asxaabtaadana la wadaagba iyagana ka sii faa'iideystaan. marka saa u jeedin nafaqadaneed waxay timaha ka ilaalinaysaa freeziga maxaa la dhahaa qaleelka calashan tinta markay qalasho way jajabtaa maho marka waxa sida ka ilaalinaysaa. marka saa u jeedin meeshaneed waxaan ku haystaa liin laba xabo ukun olive oil iyo waxaan ku haystaa caano oo 3 qaado iyo saliid qumbaha iyo argan oil treatment ku haystaa. marka intaas waxaan rabaa insha Allah inaan isku qaso oo aan ka soo sameeyo nafaqo inkastoo ay dhareereyso oo yani bibi zaid u yahay laakiin wallahi wax fiican ay timaha u sameysaa. marka maasha Allah waxaa idin rajeynaa adinkan inaad ka faa'iideysan doontiin walaalihii qaaliga saa u jeedin horta koodii saliid qumbaha iyo olive oil isku soo daray waa hal qaado oo saliid qumba ilaa iyo 2 qaado oo olive oil marka waxa sameynaa microwave kaas la soo gelina waxaa rabaa inay i dhalaasho saliid oo qumbaha isa u jeedin way adag tahay marka xoogo inay i dhalaashaa rabaa. waa kana way soo dhalaasho maasha Allah. marka waxa sameynaa ukuntiya ku dhex dare ka bacdi caanihi ku dara hadana ka bacdi liina ku miira liinta waxay ka caawinaysaa timaha inuusan agoolka galin oo waxay sameynaysaa healthy timaha ka dhigtaa oo timaha hoosa laga soo caafimaadka loogu soo dadaala. marka iyo inta kale ka caawinaysana waxa waaye ukunta urka ka bixisaa. marka walaalay qaaliga hadaa marsidid ukunta kuuma soo urayso maadaama aliin ku dartay. marka waxa idin rajeynaa insha Allah inaad ka faa'iideysan doontiin. waa kana ka bacdi waxaan sameynayaa liinta ku miira ka bacdi insha Allah waa isku soo qasaa marka liinta dhan ku soo miiro ka bacdi waxa waaye timaha soo marsanaa tartiibko. waa kana liinta ku miira saa u jeedin walaalahayga waxaan sameynaa marka caanihin oo ku soo daray oo arkaysan marka marka xoogaa soo qasala ka fiican isku dhex gelinaa. waxaan haystaa bacdaneeto oo wrapping paper-ka oo cuntada lagu wrap gareysto soo iyada ku soo sameysana timaha aan ku wrap gareynaa si fiican ugu wareejinaya marka kisto dhareerka badan oo ka daadanayo insha Allah oo maxaa la bibi zaid ukunta leedmaho. marka waxaan sameynaa insha Allah waa kana ingredients keega diyaar waaye. marka waxaan sameynayaa timaha scalp-ka zaid oo maxaa la dhahay ugu soo masaajeena insha Allah ilaa iyo tinta endings-ka meesha oo ku dhamaatay tinta dhirirkeeda. marka maasha Allah waxaan sameynaa si fiican isku soo dhex galgalina waa ku masaajeena ilaa iyo maxaa la dhahay oo si fiican scalp-ka dhan u qooyo maqaarka oo tinta gudaha. marka saa u jeedin walaalihii qaaliga waatana waxay waa diyaarsada marka insha Allah hadda waan soo marsanaya 2 saac ku soo heena ka bacdi waa iska dhaqi doona insha Allah maadaama oo madaxayga inta ka soo muujin karno idin la wadaagi karin laakiin waxa idin rajeynaa in adinkana try gareyn doontiin sheegana hal mar wax lagu ma fahmo at least isbuuci 2 jeer camal hadaa marsidid 3 maalinba hal maalin 3 maalin ka bacdi hal maalin marsidid insha Allah wax tarkiisa waa arki doontiin sidaas waxa idin kaaga tagaya mac salaama.